adeegsiga internetka ayaa dabcan aad loogu badan yahay casrigan digitalka ah waxaase imika timi in la isweydiiyo inuu qabatin balwadeed leeyahay iyo in kale waxaana la leeyahay oo xitaa wuxuu keenaa bugtada macnawiga ah ee isku buuqa nafsaaniga ah gaar ahaan waxa loo yaqaano compulsive impulsive spectrum disorder dhibaatadan oo uu qofku dareemo haddii uu khadka ku jiro iyo haddii kaleba waxaa ka mid ah qofka oo aad ugu talax taga ciyaaraha online-ka ah ee online gaming iyo fariin qoraaleedyada emailka kuwaasoo loo sii kala ableeyay sidan soo socota ku talax tagga adeegsiga kombiyuutarka oo marka dambe lala xiriiriyo qofka oo aanay micno u yeelanaynin waqtiga badan ee uu luminayo iyo dayacaad uu ku sameeyo howlmaalmeedkiisa asaasiga ah qofka oo lagu arko xanaaq kacsanaan quus iyo niyad jab haddii kombiyuutarka uusan helin oo tusaale ahaan uu qof kale isticmaalayo qofka oo markasta u baahda in agabka kombiyuutar iyo barnaamijyada lagu isticmaalo ee softwareka ay noqdaan kuwa la heli karo isla markaana u baahda saacado fara badan oo aan xad lahayn oo uu kombiyuutarka dul dangiigo saameyn xun oo uu cudurkani ku yeesho shakhsiyadda qofka sida dood badan been horumar la'aan go'doon uu bulshada ka gaafmeero ama uu ka go'o iyo daal inta badan daraasaadka ugu xasaasisan uguna xiisaha badan ee ku xiriirsan qabatinka internetka waxaa laga sameeyey dalka koonfurta Korea kadib markii ay halkaasi ka dhaceen ilaa 10 marxaladood oo ay dad si mowtil fajaa ugu dhinteen meelaha laga isticmaalo internetka ee internet cafes xanuuno la xiriira wadnaha iyo sanbabka gaar ahaan waxa loo yaqaano cardiopulmonary koonfurta Korea ayaa imika qabatinka internetka u aragta dhibaatada caafimaad ee ugu khatarsan dadweynaheeda waxaana iyadoo la adeegsanayo xog la ururinaya ilaa 2006 lagu qiyaasay in 210,000 oo caruur koonfur Korean ah oo ay da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 19 ay bugtadani halakaysay oo ay u baahan yihiin imika in la tacaalo tiyo waliba ay 80% caruurtaasi ka tirsan u baahan yihiin dawooyinka maandejiyayaasha ah hanaanka loo yaqaano psychotropic medication kuna darso 20 ilaa 24% waxay u baahan yihiin in isbitaal la dhigo oo la baxnaaniyo weli safaano le fari kama qodna maadaama celcelis aan ay dhalinta dugsiyada sare ee dalkaasi ay kombiyuutarka dul yuraraan ugu yaraan 23 saacadood toddobaadkiiba ku dhawaad 1,200,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay halis ugu jiraan inay internetka balwad ahaan u qabatimaan sida darteedna ay u baahan yihiin talooyin macnawi ah iyo dhaqan celin xisi ah gaar ahaan dhaqaatiirta ayaa aad uga dayrinaya ugana walaacsan tirada weligeed sii kordhaysa ee ashqaasta waxbarashada ka saaqidaya ama shaqada sagsaagaya si ay waqti badan u siiyaan kombiyuutarka bishii June sanadii 2007 dawladda koonfurta Korea waxay tababar siisay 1,043 qof oo talooyin ka bixiya qabatinka balwad ahaaneed ee internetka kuwaasoo ku kala biiray ilaa 190 isbitaal iyo rugo wax lagu dabiibo oo yaryar iyadoo imika dugsiyadana laga dhaqan galiyay tilaabooyin ka hortag ah inkasta oo ay jiraan waxyaabo dadaaladan dhufaanaya ama waxba kama jiraan ka soo qaadaya sida tartamo heer qarana oo loo qabto dhalinta gameka ku waalan dalka dunida ugu dadka badan ee China ayaa sidoo kale si weyn uga walaacsan ifafaalahan oo haatan u muuqda mid la isla qirsan yahay Dr. Tao Ran oo ah maareeyaha caabuqyada ka dhasha qabatinka balwadeed ee isbitaalka guud ee militaarku ku leeyihiin magaalada Beijing ayaa xaqiijiyay in 13.7% ama qiyaasii 10 milyan oo dhalina oo ka tirsan dhalinyarada Chinese-ku ay imika ka muuqdaan astaamihii cudurku iyadoo taa laga duulayo ayayna dawladda Shiinaha waxay bilowday tilaabooyin ay ku xakameynayso adeegsiga ciyaaraha kombiyuutarka waxaana haatan dhalinta lagu booriyay inay 3 saacadood kombiyuutarka isticmaalaan 24 saacadoodba dalka Mareykanka oo ay dabcan taalo sariir ilmoodkii internetka maadaama uu halkaasi ka soo unkamay internetku ayay khubaradu ku doodayaan in walow si ballaaran loo adeegsado internetka dalkaasi aanu misna la mid ahayn Asia oo aad looga isticmaalo internetka goobaha dadweynaha inkasta oo aanay sababtu saaxi u kala cadayna waxa la leeyahay waxa dadaalada lagu qiyaasi lahaa wiiqay xishood inkiraad iyo bogga oo la dejiyo ama la xiro marka qofku dareemo in lala socdo ama wax laga weydiiyo waxa uu ku foogan yahay iyo qayb ahaan internetka oo inta badan dalka Mareykanka guryaha laga heli karo dhibaatada ugu weyn ayaa waxa ay tahay cudurkan macnawiga ah ee cajiibka ah oo ay adag tahay in qofka laga dabiibo waayo boqolleydiisa ayaa aad u sareysa marka ay timaado in astaamihii la dabiibay ay dib uga soo muuqdaan qofkii la daweeyay waana waxa lagu tibaaxo high relapse rate maxamed xaaji xuseen raage barnaamijka waayaha nolosha Gothenburg Sweden